بسم الله الرحمن الرحيم. أنتنا وإذا السلام يا أديك تي او اس دمان Soomaaliyeed nagala xiriira hawada ama daawanaya TV-ga sharafta leh waxaana idinku salaamayaa salaamta islaamka. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Salaam kadib dalka hadda waqtiga lagu jiro marka xaqiiqada aan ka hadalno waxaa la dhihi karaa yacni marxalad adag oo runtii xagga marka loo fiiriyo amniga xaggiisa ayaa waxaa wajahaya dagaallo ka soo cusboonaaday deegaamo fara badan ama gobollo Soomaaliyeed ee fara badan oo iska hor imaadyadaasi ay u dhexeeyaan qaar ama qabaa'ilo ha noqdaano oo isdiidan siyaasad ahaan iyo waxay iyaga markaasi ka dhex taagan iyo nimanka adiga aad xustay iyagana dowladda ka soo horjeeda oo ayaga tooda ay ahayd dula gaar kuman marka runtii jaha wareerka hadda abuurmay beriyahan dambe oo dhaliyey ku dhacyo fara badan ayaa xaaladda dalka hadda si murugo gelisay ay tahay sida aniga aan u arkayo balse wax weliba waxay leeyihiin bilow iyo dhammaad waxaan rajaynayaa haddii ilaahay raalli ka noqdo in xal loo helo oo ay dhammaadaan. Professor deegaan doorashadaadu waa Koonfur Galbeed waxaa ka socda hadda deegaano markaasi ka mid ah maamulka Koonfur Galbeed dagaallo markaa la isaga soo horjeedo oo ay isaga soo horjeedaan qaar ka mid ah ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya oo u kala qaybsan laba dhinac bal ka waran dagaalada ka socda caasimadda Baraawe oo u ah xaruntii madaxtooyada maamulka Koonfur Galbeed. Asalaanteedano marka la yiraahdo ciidan dowladeed ama mid maamul goboleed waxaa meesha isla markiiba la arki karaa in ciidamo markaa nidaam dowladeed iyo mid maamul goboleed intaba maartay markii meel la iskugu keeno haddii ay furgud dhex marto in xalkooda uu fudud yahay sida ku baxay sida aan ognahay sidii loo dejiyo ama loo kala dhexgalo mas-uuliyiin dhinaca ka socda dowladda federaalka iyo dowladda goboleedka maamulka Koonfur Galbeed uu madaxweyne ka yahay Cabdicasiis xasan laftagareen balse laakiin arrinta waxaa sii holciyey oo weliba kasii daba maartay siyaasiyiinka ku raba inay ayaga ay ku shidaan dadka walaalaha muddo qaarkood oo weligooda isgaarin ku wada noolaa inay colaada ay u bedelaan colaad qabiilaysan siyaasadaysan oo ujeeddo badan ah marka taasi ayaa mushkiladda hadda jirta ah si ay colaada oo dhan xataa ay ugu baahiyaan gobolka qaybtiisii kale Baraawe keliya maaha inay gaadiyaan ilaa iyo 8 degmo oo ay Baraawe ku jirto oo ay doonayaan hab qabiil oo isku dhac inay ka sameeyaan ayagoo dhex dhigayo naceeb aan hore u dhex oolin dadkii halkaasi ku wada noolaa Soomaaliya oo dhan gobolkaasi si maartay ciido iyo karaamo iyo sharaf leh ay muddo dheer qaarna ku wada deganaayeen kuwa kalena iyagana hadda ay yihiin kuwa fursad helay inay deegaamadaasi ay tagaan taasi ayaa ah sababta hadda annaga aan u arki karno inuu ka jiro isbarbaryaac oo loo baahan yahay in arrintaasi loo istaago sidii loo baajin lahaa dhibka ay ka shidayaan dadka ku faylinaya balaha bulshada har iyo habeen aan maqalno codadkooda ayagoo adeegsanayo kicin qabyaaladeed oo aad maqlayso Baraawe waxaa iskale irir Soomaali qola dhahayso iyo qaaran dhahayso Shabeellaha Hoose waxaa iskale beelo hiblaayo oo ayaga kuwa xataa heer ay gaareen inay ka tallaabsadaan xataa beel hibil oo ay u gudbeen aad maqlaysid dirba iskale oo ayada qowmiyad ay tahay
sidaas oo kale iyo dhan ayada ayaa haddana wada lela dhahayo digri mirifle oo dhan baa wada lela oranayo oo yacni magacyo adiga iyaga hadda ay ku samaysteen oo ay doonayaan inay kaga dhigtaan durin ay ka gaaraan maaragtay xirfadaas inay uga faa'iidaystaan abaabulaya xataa dadka beeraleyda deegaankaasi boqolkiiba 80 degan xataa qaar magacyada soo qaadaya ma jiraan oo dhahaya xataa dadkaas way nala degaan oo sida ay ayaga u hadlayaan aad la yaabaysid oo ayaga bataatanka saaraya dadkii indigenous-ka ama aboriginal-ka ahaa intaasoo qarniyaal ku noolaa oo nabad beerahooda ku jiray ku falanayay biladooda iyo duurkooda ayaga halkaas ugu dhigaa ayadoona loo soo yaqaano gobolka deegaanadiisa tuulooyinkiisa beerbeer iyo badbad la isu yaqaano ayaa beryahan dambe dadka aad ka dhibaatada wadanka ayaga kusoo kordhiyay ay yihiin oo ka dambeeyey dadka qaylada badan mushkilada wax badan dagaalada aad moodidba inay ayaga ka ribxayaan oo ayaga ay u noqotay meeshii la yidhaahdaba dagaal baa ka bilowday oo ayaga ama waa la isku haysta la yidhaahdaba inay sii ololiyaan rabo si danaha gaarka ay leeyihiin ay ugu fishadaan ama ay uga maartay sameeyaan waxay raadinayaan ama dhaqaalaha noqoto ama magac been ama aflaan noqoto professor dadka aad tilmaamayso waa kuwe dadka aanan dana maartay gaarka wato oo aanan u kala harin